أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إخواني عوا وهبين جمعة تاريخنا يكون بيجنتهاي لبي طبانكي بشي ذي الحجة كنا فربغل صدني سجال وفقسن لباتني سدح بشي سديدات لبدا كن طباني سديدة وحنوب لنسنين محاضرة عوان كذو يهاي نصرة الدين مسؤولية من مركا وحانو جيدين دون إن شاء الله تعالى شي محمد عبد أمل شيقا ينكسو دوينيا إن شاء الله تعالى مركي محاضرة دماتنا وحي سؤالا أنك قارنا أيان شيقا ويديسان دوننا إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم شيخنا سودو الله كبركيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي بات تبارك وتعالى ما هاد إسكاله مدن حلي والبي حالد والبينا نمهد علينا ون أمانه ساجد كانوا ينقوا كل مية إنه أقول نمد إن أنتو كانوا صلاة المغرب. الحمد لله الله ينقى قبله واتكني توفيق الله ويه. وحين أفردنا إن عندك السنة درسي إلى صلاة عشاء iyaduna waa nicmo kale. salaad intaad tukato inaad ilaa salaada kale meeshaada ku sugto, nabigu wuxuu ku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam in ruuxa dunuubtiisu ay hoobanayso ka daadanayso, bal nusuustu waxay ku tilmaantay inuu ribaad yahay. ribaadku wax weeyaan waa furin adoo ku jiro kala waa. marka ilaahi tabaaraka wa tacaala ayaa nicmada ina waafajiyay, isagana weydiisanayna rabbi tabaaraka wa tacaala shukrigeeda inuu ina waafajiyo. haddana mowduuca sida sheekhu u sheegay waxa weeyaan nusratu ddiin mas-uuliyatu man am man ilmas-uulu can nusrati ddiin. diintan islaamka xuqabashadeeda, uhiilinteeda, horumarinteeda, faafinteeda yaa mas-uulka ah, yaa xil ka saaran yahay. waa su-aal muhima. saan ogsoonnahay ninka waxyaalihiisa khaaska, ruux walba waxaa khaaska u ah ilmihiisa, xaasaskiisa, xoolihiisa, naftiisa, ganacsigiisa, danihiisa khaaska ruuxu waa yaqaanaa mas-uuliyadda ka saaran. laakiin hawshan inaga dhaxaysa oo diinta ah yay mas-uuliyadda ka saaran tahay, yaa xilkeeda iska leh. qodobkaa way qodobkaan doonaya inaan wax yar ka tilmaamo, ilaah iga waafajiyo tabaaraka wa tacaala. waxaan mowduuca u doortay diinta ilaahay tabaaraka wa tacaala inoogu nicmeeyey ayaa waxay gashay isku tuurtuur iyo isku hallayn, dhexday ka baxday. marka dhinac wadaadadii bay qole u riixayaan, dhinac waxaa loo riixayaa madaxdii, qole waxay ku riixayaan ganacsatadii way iska riixayaanoo iyagana qolo kale ku riixayaan. marka sideedaba yaa mas-uulkaa diintan, yaa xilkeedu saaraya. qodob muhiima wuxuu yahay intaynaan gudagelin su-aasha jawaabteeda inaynu ka jawaabno, inaynu horta ka hadalno ahmiyadda ay leedahay diintu iyo caqiidada wanaagsani ay ruuxa muslimka u leedahay. markaynu ogaano ahmiyadday leedahay iyo qiimaha inoogu fadhido bay imaan kartaa
yaa iskale inuu ilaaliyo marka Allah tabaaraka wa ta'ala suu quraanka kariimka inoogu sheegay walaalayaal wuxuu inoogu nicmeeyay nicmooyin badan oo tiro koob lahayn wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ma koobi kartaan nicmooyin qaarna muuqdaan qaarna qarsoon yihiin wa asbaqa alaykum ni'amahu zaahiratan wa baatinah laakiin nicmooyinka ilaahay inoogu nicmeeyay midda ugu qaalisan ee ugu qiimo badan waa nicmada diinta inta kale dhan hadii la isku daro wax yar bay noqonayaan marka midda diinta loo fiiriyo Allah tabaaraka wa ta'ala quraanka ayuu arinta inugu baraarujiyay wadhkuru ni'matallahi alaykum wama anzala alaykum min alkitabi wal hikmati ya'idhukum bih waxaad xusuusataan oo xustaan ilaahay nicmooyinkiisa uu korkiina idinku nicmeeyay waxa soo galay halka nicmooyinka adduunyo iyo kuwa diineedba xusuusta markaasa markii sida loo camimay ba hadana si gooniya waxa la yiri wama anzala alaykum min alkitabi wal hikma si gooniya waxaad u xusuusataan nicmooyinka midda ugu qaalisan ee ugu qiimo badan oo ah inuu ilaahay idin soo dejiyo kitaab iyo xikmad oo idinku waaninayo waa quraanka iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam waxay culimadu dhahaan usulka wa takhsiisun ba'da ta'mim wadhkuru ni'matallahi alaykum wa mufrad mudafa umum faa'iideeya ni'amkii oo dhan markii la camimo kadib si gooni waxa farta loogu fiiqo la khassisay nicmada diinta حيلي لأهميتها وحي كمهم سنتهي نعموين كالودن طيب وحي كخير بدنتهي أدونك وحي لودن شهوات كيس زخارف تيس عرور تيس عفيمات كيس كراس تيس تشغوين كيس معمعان كيس وحي لودن وحي كقيمة بدن دينتا كقيمة بدن دينتا كقالس الله حليه تبارك وتعالى يسوى أرنتا ينوت المامية يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ضد وردتك يوم وحايدين تمد وانو حق الرب إذين كتمد إيا الله بها وحي داوين لها قلبك داودي سين حق الله يدين كتمد قلبك داودي سوى دينته وإيمانك وعقيدة في عن وعملك الصالحة وحي قلبك داوين لها يعذر كسار لهانا حق الله يدين كيم هنون بايدين من حق الرب كيمت نحريس مؤمنين تلون نحريسنا يوه انت مرك اللي نوشك وحلي قل بفضل الله ديراتك إلهي إذن سيه إيو برحمتي نحريستي سادين تأه فبذلك فليفرحوا مدها كفر حين بالله تبارك وتعالى وحمضان إن لغو فرحه والله بشاريستو والنعمة الدين تإلهي إذن سودتشيي هو إساق أيانا خير كخير بدن مما يجمعون وحكالي أرورنا يان وحكالي أرورنا يسان وردن نعمة ساك خير بدن ومحان أرورنا عرور بين أرورين حاسس وين أرورين كراس وين أرورين حول وين أرورين وحكالات أرورين إنسان يكون مشغول سنتين أردن هو خير مما يجمعون واحد أرورين يسرون إذا كخير بض سمارتان هل كامرك محاكم مقضى دينتا إلهي إنوسو دجي تبارك وتعالى إيا وحا كرنا شيء إيمانك يعملك الصالحة وحوك قيمة بدنيا هاي أدونك وحي على أردن اسكدر أبي بن كعب يا عبد الله بن عباس وحا كسوغن إن آيات كوفة السيرين قل بفضل الله وبرحمته وحي كوفة السيرين بكتاب الله وبالإسلام إلهي كتاب كيسي إسلام لماذا كفرحة إيضا مضام وحلقوا فرحة بمعنى فرحا الدنيا دي الشهوات كذا تكون فرح سنتين وحكمهم سنين الدين تينا كفر حدا إسلام لماذا كفر حدا إن الطاعة كفر حدا تاسا كم مضن لأنه واحد سمن ما واحد كميد ما تصلت المامية تاس كفر حوا واحد فرح مضن
ومدى أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقارسيه إسكتنا في مبادئ ووين هي الدين إلا إسكرب لك إسكب داي دين أعماش قارك أن حتى واجبك أهين أعماش طاعة أن واجبك أهين هي الدنيا ده دين لإسكرب لك عمل يرأى صنعه وأن واجب أهين أيا الدنيا دي يوحي الله وكخير بدر سأصدر هذا النبي نوح صلى الله عليه وسلم لوضع ركعات الصلاة الفجر كهري ما سنة مش واجب السنة لوضع ركعات الصلاة الفجر كهري أيا كخير بدن الدنيا ذي واحد حذا يا لورد كورما والله وركعات حتى واجب هين لأن لوضع ركعات السنة ده وحقات كوه ليسو باك قيمة بدن أدون كي واحد يحدث سيالونا سومارت مرك الدين يا أدونيو وحلا يسكرب لي كرماه دين توحي كي قيمة بدن تاي الدنيا ده إيو يعني الشهوات كذا ومرك كوبادي هرت الدين تو وحي السبب النقطة السعادة في الدارين لبدا دارود بينات كل بانتو واحد ربطينات هشو يا دين باكنت أما الدنيا ذو حداد هالشحتة نلشن هراء الدنك أنت تجوكت واحد ربطورن هدي اللغسية كنا حسيلي ميسي كنا الدقي ميسي ليباني يحسلوني الراحنا كهلي ميسي بالويدية يا شالي مسدرات بوحن كآخرين الجزيرة وحن كآخرين قرال الجزيرة نت بوحن كآخرين قرال أي ليهين ما سوقر وحوليه الدنيا دي ندتك وكبضت ليبانتي يوحي للرادين يحسلوني دينا ولا لا ورسي وحجران مركي الدنيا سيبضت ودتك وبضت كذيت باسيبتي ورسي وحجران ولا سويدين يا أيقو التحليلات كلا يساريان لكن حقيقة وحي تهي دين با كانت نولل معان إيمان با وحو كانا نولل حسيلون إلهي ضاعدي ساوحي كانتا إناد راحيستو وتنكو حسيشو نولل معان آد نولتو ردن له هداد جيريوتو طافتنا مالي بمالينتا كدن بيسات كسي في عنتها adduunka joogidiisa waxaad ka fiican tahay markaad qabriga gashaad ka sii fiicnaanay saas taradeed baa nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam annaasu mustariihun wa mustarahun minhu dadku waa laba midna markuu dhinto raaxaysta midna markuu dhinta laga raaxaysta midka dhimashada ku raaxaysta kee waa muuminka ilaahay caabudi jiray geeridu ku raaxaysta markay naftu saa uga dhacdo intayna naftuba ka dhicin ba sida xadiidka Bukhari Muslim tilmaamayaan intayna naftuba ka dhicin ba waxa loogu bishaaraynayaa jannada iyo boosku ku lahaayeen naxariista Ilaahay waa loogu bishaaraynaya naftu wali ma dhaafin shirka kama bixin markaas wuxuu jeclaanayaa Ilaahay la kulankiisa Ilaahu nafta iga qaad Ilaahay inuu la kulmo hore u socdo uu jeclaanayaa kii faajirka ahaa xumaa ama gaalka munaafiq faajirka ahaa asaga markii lagu soo xaadiro geeridu ku soo xaadirto oo naftu ayna jirkiisa ka dhamaanin ba waxa la tusayaa naarta meesha ku lahaa markaas wuxuu bilaabayaa inuu Ilaahay la kulankiisa nacbaysto ka hado oo uu jeclayso in dib loo celiyo xoog baa laga qaadaya meeshaas markaa waxa uga bilaabanaysa alqabru awwalu manazil al-aakhirah aakhiro boosaskeeda booska ugu horeeya waa qabriga halkaas hawshiisu ka bilaabanaysa mu'minkuna halkaaba naftuba haday ka baxdo oo uu qabri aado qabrigi waa janno qabrigi waa raaxo qabrigi waa iftiin qabrigi dirishad baa ka furan jannadii buu daawanaya waxa ku socda saxan saxadeedii udgoonkeedii baa ku socda adduunyo u darsanaayo mana rabo haddii ninka tagay mu'minka qabriga galay maanta loo tago la yiraahdo ehelkaagii reerkaagii ma kugu celina caruurtaadii reerkaagii ma kugu celina mar rabule
maxaa kadeedkooda iyo walbahaarkooda iyo cudurkooda iyo biil u raadintooda iyo masruufkooda iyo walbahaarkooda maxay geli meeshana ma raaco ku haystaa ma rabo ma soo noqonayo Soomaali laana wuxuu ku sugnaa wax u dhaamu helay Soomaali sidaas daraadeed maxaa keenay diinta keentay ruuxa camalkiisa iimaankiisa iyo camalkii saalixa uu sameyn jiray adduunka markuu joogay ayaa waxa loogu soo ekaysiinayaa nin qurux badan ruux qurux badan baa loogu soo ekaysiinayaa markaasuu qabriga ugu iimaanaya waa kuwa helinaya markaasuu leeyahay warniyo maxaad ahay wajigaagu qurux badana oo dhalaal badnida oo seed u taala warniyo maxaad ahay markaasuu wuxuu leeyahay ana amaluka saalih camalkaagii wanaagsanaa baan ahay Soomaaliyeed sidaas daraadeed diintu waxay adduunyada kaga fiican tahay adduunka kaliya raaxadeeda iyo barwaaqadeedu ma ahee adduunka nolosha ka dambaysana barwaaqadeeda iyo raaxadeedu waa kula soconaysa qabriga waa kula socotaa nolosha qabriga marka laga soo noqdo oo qiyaamada la yimaado nolosha bacsiga iyo nushuurkana diintaadii iyo iimaankaagii waa kula socdaan ilaa aad jannada ka gasho ood cadaabka ka badbaado ood ilaahay ridihiisa hesho iimaankaagii iyo camalkii saalixa waa kula soconaa tii adduunyo la dhihi jiray u imow ninkii kasbay shaqeeyey dhididay rafaaday dhisay orday yaa hantida meeluu kala dhiga waayey kuraasta ku fadhiyey madaxweynaha ahaa dictatorka ahaa ee ummadda kale amrahayey wuxuu raba sameynayey waxba aan ka maqnayn adduunyada maalinta waxa weeye laba inta saddex calalood muxuu ahay cadaad lagu xidho godka dhow 2 mitir la geliyo khalaas aawa wixii war maxaa soo haray waxba ma socdo waxba lama socdaan khalaas maalinkaasuu ka dhaqaaji walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم مالين كان إذن أبورنون إذن كان سيداد أهيدين كليغا أدو قاون أياد أدونك كوزو بيرت عقلك وقفلا يحوك وقفلا منا الله سيدي آت كتمد أديقو بانكو قادنا يقول الله تبارك وتعالى وحاد نوت تمد أديقو سيدادي قاون يا بور يقبه كبالا وحبا أن وذنين كليغا أدو بعد نوع إيمانيس إلهي بالله تبارك وتعالى ساس هذه يقول ساس تردد كي مدح أها يكي منشاء أها يكي ورن لها يكي وداد أها يكلي هل كاسي هرتغيان وحي الدنيا لديه جروا لسقوتي مركا كويدية مركا ميد الدنيا دانا كو حسيلي نيس كاهرينينو إلا أتشنق شكولا صعونيس iyo mid halkan aad ku kala tageysaan inta joogtana aadan ku xasileen billahi alaykum labada markaad isgarab dhigto kee waay warkeysita misa waxaan ka waramayno wax jiro ma wax la isgarab dhigi karo ma wax la isgarab dhigi karo ma qodobka labaadi waxa weeye diintu iyada adduunyada hagaajisa raashinku soo suuga male soo milix male raashinka haduusan suugiyo milix iyo wax lahayn qoriyuu noqonay lama cuni karo adduunyo aan diin lahayn waa adduunyo fasaadsan waa ninka haystana waa ku kadeedan yahay laakiin diinta iyo iimaanku waxay islaaxisaa waxay hagaajisaa waxay suugaysaa waxay toosisaa ruuxa diintiisa ruuxa adduunyadiisa midka kursiga ku fadhiya markuu diin leeyahay kursigiisa diinta u hagaajinaysa awoodda uu haysto inuu meel wanaagsan mariyo diinta tusaysa midka dhaqaalaha haysta dhaqaalihiisa waxa hagaajin kara waa diin midka caruurta haysta caruurtiisa inuu si wanaagsan u koriyo jid wanaagsan mariyo oo ka faa'iideeyo waxa keeni karta waa diin diinta adduunyada islaaxisa laakiin adduunyadu iyadu diin ma islaaxiso adduunyadu iyadu diin ma islaaxiso allahumma in ruux saalixa intuu helo oo isticmaalo oo markaas diinta wax uga qabto mooyaan طيب qodobka xigaay wuxuu yahay oo iyadana meesha ku jirtay diinta ilaahay baa jecel
اللي هنا أبورتي إن الدورتي إيمانك إنه دورتي بعد دين تجعل ددو تجعلها يبون السياء لكن الدنيا ذا ميدو تجعلها ميدو نعبيها لوضع واسيها الدنيا ذني إلهي تبارك وتعالى ذاتك أوصيه وكو امتحاناي جعل أمسيه كو كقدينا وكو امتحاناي نعيب وقام قدين فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا من آدم كمركو إلهي كرامي وأني معي وحقال لسيب يا واللغو امتحاني حقال لسيب وامتحان واللغو فيرنا يا وحليه الرب يجيب أي كرامي وأن لا يدورتي ضدك اللي يجي تشعلي هي يا كوي كلام وحب الله سينبوا له ور إلهي باكون نعي وعكسيه هذوك تشعلي سجنوا حليه ربي أكرمني والي كرامي كي كله الرزق اللي قعدي الرزق اللي قعدي أنا الله قد جاي امتحان درت اللي قعدي السجنوا حليه ربي أهانا ربي جيب إهانة يستي يا والله نعي يا إلهي وإتوري محو أريك السيدان يقول قلي الله وحوري كلا سيدا ما هرنتو سيقاتين ما كاننا الدور شما كاننا إهانة مئه لبضب وحوي فأما الإنسان إذا ما ابتلاه هو امتحان كان والله امتحاني قدين تالقوا امتحاني كان والله امتحاني سين تالقوا امتحاني كل السيين وحلقوا فيرنا يا أيشكر أم يكفر ما الشكرين تلو يا ميو الشكرين بسووا كفرين كان لقى قديين وحلقوا فيرنا يا ولقوا امتحان أيصبر أم يجزع ما الصبر دونا وعجيني قام كل صبر دونا مسمية مركوا امتحان الدنيا دني وامتحان نيكي سيدا سي أنا هين مودنا وأني ورر سوى وأني فهمك كخلدية أنت بدنا بني آدم كمركوا حوجاه هلو فهم كابك الله مبا أكرمني أهانني بوك بعيا أكرمني أهانني سمعت ساس درد بارك سامد ملهن إن لا تشوه إن لا تكتك هذا إن لا عبادة يستو إسكفي عنه ساجك كوتشرة يا مال أنت دم كرسي الله دوران كرسي بالله صاره مركي كرسي الله صاره نينكي تكنشر ما بهاني كريم يا نينكي فرحها الصفك هو كوتشري تشري نينكي بما ورنيك المحاكو دعاه نينكا فيلم كلا أشيد ماي مركو صفك هو يقول تشرينا فيلم بأودارنا مركو ماشى تجينا فيلم كي فيلم أنا هين بأشيد ماي بني آدم مركو وحوي قرو جاسو كتيرة والرياضة متك وحوجا حولها هيستيل الله ضنا وقروية أنت حوله أكتشوجا مسك كرسي وكفردي شجرة كفردينا أنتو شجرة هيستو كرسي وكفردي وقروية حقيقة الجرموت تجيا مركو كرسي كده يا سوالي سوينا بربري رجي وزير هذا يتشنن هذا يوضع مدح هذا وضع خطر تاه مركي الدولة دي بربرتهاي رج بدن المساجد يسوق له تبنا إلى الله منه ورسالة محاط تبنا إيدين ديدي كرسي ديدنا فيلم كان بنت دارن بتبنا شلي ديدنا فيلم كي مركو حرمينا حقيقة دي بالله تجي يا وأنا هانشري باكسو هذا وأنا هانشري محاكو تري سوماري سيداس درادد حقيقة الدنيا ده هي الدين تي آخر هذا مركل الله يسوفيري الدنيا لا تساوي شيئا وحقيمة إلى هذا مجرد نيجي سيدا سياه الموضة ينا وأن قروي الريونة يسوي ولي بسوي هذا طيب هذا مركل الدين تو أهمية ده على هذا ويسيدا مهم وطاح سؤال شو واحد تاح إلى لين فافين واردين كشقين يا مسؤولك يا أحيل سارا يا عافماتك وحا أحيل سارا وزارة إلالية هذا عافمات بو باهي لكن عافماتك دولة إلالينا ابن آدمك عنتي بيو باهي دولة أتاغن ابن آدمك وحبرشي اسكولو باهي دولة أتاغن سمعت
ibni aadamkii amni iyo nabadgelyo u baahan yahay dawladaha u taagan iyo laama ammaanka oo u xil saaran su'aal isweydii marka tii diin la dhihi jiray u xil saaran iyada ee sidaaba u muhiimsanay waxaan oo dhanba ka muhiimsano asaaska yaa iyada u xil saaran yaa mas'uuliyadeedu saaran tahay su'aasha jawaabta u baahan waa inaan caawa saxnana aan rabno kow horta intaynaan ku hormarin ilaahay tabaaraka wa tacaala isaga ayaa damaanad qaaday inuu diintiisa xifdiyo masala waa taa haddii dadka oo dhan xilkaa ay dayacaan oy ka jeedsadaan ilaahay tabaaraka wa tacaala marna diintiisa dayici maayo isagaa u taagan rabbi tabaaraka wa tacaala ilaalinteeda allah wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala innaa naxnu nazalna adikra wa innaa lahu laxaafiduun annagaa soo dejinnay waxyiga annagaana ilaalinayna buu alla yidhi tabaaraka wa tacaala isagaa ilaalinaya lowlaa ilaahay uusan ilaalinaynin waa horaa la dardari lahaa maalinkii nebi maxamed la soo saaray sal alla alay slam isagoo keligii ah uu dadka diinta ugu yeedhay salawaatu rabbi wasalaamu calayh maalinkaa isagaa caalamka oo dhan baa ka hor yimi adeeradii iyo carabtii baa bilaabay quraysh baa ka hor tagtay qabaa'ishii carbeed baa ku darmaday isagiiyo intii yaraydee rumaysay meelay galaan bay waayeen tabar haddana ma jirto dhaqaale ma jirto dawlad aad salka saarta ma jirto yaa oon allah ka ahayn waxaan alla ka ahayn tabaaraka wa tacaala maalinkaa isaga ah waa suurtogeli kari weyday in inta afka la qabto kooxdan yarta alla baabi'iyo nebi maxamed laga takhalluso iyada dhanba meeshaa lagu aaso suuroobi weyday maxay ku suuroobi weyday ma awood bini aadan ba ya maya awood bini aadan ma aha laakiin ilaahay baa ilaashanaya allihii maalinkaa ilaashaday baa ilaa maanta ilaalinaya reer yurub oo dhan marba intay israaceen baa waxay go'aansadeen inay diintan islaamka salkeeda soo taabtaan dadka haysta ay waxay gumaadaan iyo waxay ka saaraan inay ka dhigaan makiya madiinana salkeedaba la soo taabto waxa la magac baxay al-xuruub as-saliibiyya loo bixiyay xuruub as-saliib taariikh dheer bay leedahay bariga niman maquuliyiin la yidhaahdo China iyo dhulka ka soo duulay oo taariikhii dhexe caalam islaami oo dhan intay dardareen dimashq soo qabsadeen dhul badan soo jiireen oo isku dayay inay islaamka afjaraan waxba u suroobi waa caalamkan cusub reer galbeedkan cusub markay dhasheen oo dawladahoodan iyo kacaamadan iyo warshadahan iyo horumarkan ay sameeyeen targetkooda ugu muhiimsan wuxuu ahaa isticmaalkooda iyo gumaysigii ay caalamka ku duuleen wuxuu ahaa inay soo afjaraan diintan islaamka iyo dadkeeda haddana maca dalika gumaysigii bax diinta islaamkuna waa sii jirta ayagii markay tageen oo dalalkii ka tageen waxay dalalkii u dhiibeen oo uga tageen dadkii u dhashay qaar ka mida laakiin injinkoodii ku rakiban yahay fikradoodii qaba ayagii bay u xil saareen oo yidhaahdeen diintan iyo dadkeeda cagta saara ya dawladihii ka dhashay caalamul islaami waxaa la bilaabay in diinta la caburiyo lala dagaalamo dadkeeda la xidhxidho wadaadka la qabto daaciga la qabto horumarka loo diido si walba la yeelo si walba haddii la yeelay madaxdii nooca ahayd badankeed tage diintiina way un sii xoogaysanaysaa ilaahay markii maalinka maantay ka xoog badanta raggii la dagaalamayeyna aaway yaa tage sooma tage ayadiina maanta waa ka sii xoog badanta marka wax mucjiso ah waa wax mucjiso ah waa wax la yaab leh waa waxa ka weyn awood makhluuq ka weyn baa wata diintan wata waa diinta adduunka ugu faafidda badan waay ومع ذلك ودينت الدونك الدجالك اللي قلت شر أوجب بدني هي واحد هذا مع ذلك ودينت أوجب في التبضان واحد وأحمرك وحويان كبح سنوات إنه إنا نحن نزلنا الذكر
وإنا له لحافظون سرت تاوى أننا إلى شني نبو عليه تبارك وتعالى طيب لكن الله إلى شذي وحكو إلى شذي والسبب وقدقي مر والباء ضد التاجن ومؤمنين أو درجات كذا كوكريالو يا لغو شرفيا يا لغو كرامين يا إلهي الدين تسمر والبا وكرياليا لكن ضد بو الدورتايو كشرفا مر والبا أو جلية عقل كذا أو جلية قلين كذا أو جلية حوله هذا أو جلية حوج كذا أو جلية نفط هذا إلهي بقى الدورتا يا الله دور ليا يا لغو شرفيا إلهي تبارك وتعالى ومباهنا صوما ومباهنا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم هذا شيء ستانا وحي ليدن كواي سيدي الربح هدي ليدن كواي حب الله يدن كفر ماي كوا يدن كفي عمبو إله يدن كبدلين وما إله مدد كلواي يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ضد إلهي كان سن دينتي سأشقي هذا إذنكم شرفتا قادة وإذا وروا الله إذنكم ماموسيا والشرفيد إله وحب الله قاعد مباهنا هذه يحولها هي النفط هذا هي عقلي قاعد طون إله وحب الله مباهنا لكن أذا لقوا الشرف يا شرفت مقادنه شرفت مقادنه هذا شرفت الربين وحب الله لقوا فلما لقوا ما نباهنا معناها سالينو شيء الله تبارك وتعالى ينو شيء ساس دراديد با الله وحده تبارك وتعالى ولو شاء الله لانتصر منهم هدو الله دونه isagoon idin baahanin buu ka guuleysan lahaa waxaan ka soo horjeedo diintiisa ilaahay sidooda ugu adagay walakin liyabluwa ba'dakum biba'din alla wuxuu idin amraya hawlahan waa inuu isku keen imtixaano in idinka leedin darajeeyaa la rabaa idinka ilin sharfaa la rabaa iimaankiina in la saafiyaa la rabaa aakhira meel wanaagsan leedin geeyaa la rabaa inaad sharaf ku yeelataan diintan baa la rabaa لكن معناه هذا معها إن إلهي دين بهاي ما ولكن ليبلو بعضكم ببعض كو الدين تسكور كذا الله دقال لما يordن البرقس بو إلهي تبارك وتعالى يكير بو يقدم بابين كره ولو شاء الله لانتصر منهم إلهي هدور ربوا كقولي سلها يسقون إذا كيدين بهنوا معنا طيب سيداس درادت أيا وحى بهنا إني نفهنا ولا لا بعدما أي نفهنا دينتو إني تهي وحى إني أي نهيسنا وحى وشرف وضن حدنا قضب كلا إن أوجانا أو دين تاس إلهي نسي قيمة له إني نو يسوتاجنو وأينو إلالينو وأينو حوتشنو وأينو فافينو إنك شرف كوي لنا إنه اللي دين تنسود شيء ما هباهي ونوقبه طيب لكن رب تبارك وتعالى حكمة ديس الدوم ديس واتشعليها مؤمنين تا شانسكا إنه وينسي شانسكا إنه كفى إذا سنو دين تقرب استاجر نبي جينا صلى الله عليه وسلم في رسالة مركل الصدري الله مركو صدري الله صدري عالم كإنه جارسيو رسالة توحيد كإنه جارسيو يدين مركل الصدري نبي جينا صلوات ربي والسلام عليه حوله الدين تكفى فيه لو مسوا ديبين وفي رسالة لو مسوا ديبين هل سنو إسكار دافع بال بجت كي ودعوة قوة لها لو مسوا ديبين نبي يقول حوله ما له صلوات ربي والسلام عليه يا حوله ساسا موسى الله بل صلوات ربي والسلام عليه يران تيسي أري يقول راعي شري ضدبو أري يقول راعي شري كما في الصحيحين أو حوجا شلما أبو كقادن شري وأري يقول راعي شري أنبياء يرسوش بدن كودنا ويصامرين يران تودا إني أري راعان لأنه هو لقط تبرهي وحلقط تبرهي أري الراعي ديسا بني آدم بين راعي دونان يا أريجا بني آدم كل آد بيسو شبهان أريجا نك أريجا الراعي يقان أريجا سيد الله وضو بني آدم كوح بدن بودي كرا ولا صوت بري مرك أريجا الراعين يا أنبياء سيد أستراد النبي جينا صلوات ربي والسلام عليه حول الله مسوا ديبين
laakiin ilaahay sunnadiisa waxay ahayd in la diro oo la yidhaahdo hawlgal طبعا xoolaha ay dacwadani iyo diintani ku hirgeli doonto waxay ka iimaanayaan dadka raaci doona rumaynaya jeebkooday ka iimaanaysaa markiiba nabiga sallallahu alayhi wasallam markii waxyu ku bilowday cidii ugu horeysay rumaysay ahayd cidii ugu horeysay ee nabigu u yimid markii malakul jibriil u yimid oo intuu ceejiyo ama juujiyo uu ku yiri iqra bismi rabbika alladhi khalaq oo aayadaha dhowrka ay ku soo dageen oo isagoo naxsan oo argagaxsan uu yimid cidii ugu horeysay uu la kulmayay khadiija xaaskiisii baa زملوني زملوني لقد خشيت على نفسي خديجة نفط إذا نبقي إددا خديجة ما شاء يضع بين النبي صلى الله عليه وسلم كر ميسي والله لا يخزيك الله أبدا إلهي بان قدرت إلهي مرنك هو تشين مايو أرجعين استجي يا محيالي قرابات حريرسا martidaad u roon tahay culayskaad qaadaa nin dabeecad fiican baad tahay akhlaaq wanaagsan baad leedahay rabbiga marna ku hoojin maayo tartiib saji inta mayna ku gaabsanina way sii qaaday markaasay nin ay ilmaadeer ahaayo la yiraahdo warqatu nooful oday ahaa oo diimihii hore wax ka yaqaan ya nasraani noqday way u geys qisadu saxiixaanka ku taala maqsuudku muxuu yahay marka خديجة رضي الله تعالى عنها مالك مركي أجوه الرسول رميسيبا قرب استاجي أي نبي قرب استاجته صلى الله عليه وسلم أيضا قرب تاجم بيكو جريوت وحيكو قرب استاجته عقلي كذا حوله هذا دلال كذا قرب كأجوه النبي محمد هلايبو صلوات ربي والسلام عليه خديجة هاي saas daraadeed ba xagga ilaahay waxay ka mudatay wax aan cid kale oo saxaabada kamida intaan ogahay aan la siinin muxuu yahay waxa uu yimid malakul jibriil baa nabiga u yimid sallallahu alayhi wasallam xadiidka wa xadiidka Abu Hurayra Bukhari Muslim baa warinaya jibriil baa nabiga u yimid sallallahu alayhi wasallam markaas wuxuu yiri ya rasuul allah هذه خديجة قد أتتك بإناء معها فيه إدام أو طعام أو شراب رسولك إلهي وخديجة كوسو صعوتو واتا ويكوسو صعوتا ويل بي ودا ويل كاسي إدام با كتشرا مسعنتا كتشرتا مسعبيتا با كتشرا مركي كوتي ما دو كسو قادو ويسو صعوتاي فاقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب وفي صدق خديجة ويكوسو سعتا مركي كوتي مادو واحد قال سيسا صلان حق ربي قد كسعود ربي باصو سلامي يا أني قد جبريل أنا سلاني قد سي حاجات كواركتين حق إله الروح كليجي سلام لوجا صدر يا كليجي جبريل سلام تاسوكه سلام ربي كسعته وربي وصو سلام خديجة أم المؤمنين بو جبريل كاني نبي يقول قارسي خديجة أنا ولي بيقول سلام خديجة مركيت من النبي قال شيء صلى الله عليه وسلم جبريل بقى يمت سلام ربي بو كوس سدا سورة واكو سلام يا مركز واحد الرسول كلاهيو إن الله هو السلام وعليك وعلى جبريل السلام إلهي هرتا أدوك السلام وعليكم السلام يا رب ها وعليكم السلام ما هي مخلوقات الله قلت لك وعليكم السلام فقه كذا كم يتاع ما يندهن وعلى الله السلام ما يسندهن وعدري إن الله هو السلام إلهي هرتا إسقى سلامه لأنه مقعد إلهي محاكم بذا القدوس السلام سوما إن الله هو السلام بيتر الله ورده ويسقى بالسلام وسيدي سوكو أمانية أما أنت سلوى السلام
عيب مالي دمانان مالي وعليك أديك النبي محمد صلاة دي سو قارس وعلى جبريل كإصو سلامين كركودا السلام النبضيها عطويت جبريل يا نبي محمد إلا الروح أمركم الروح سلام كاسو قارسيو ورهيب البان سلام كاقسدا يا عليه السلام كليا لمرة كان كسو قارسيين قدر صوما محلي هذا عليك وعليه السلام صوفيس نبي كان وي سلامتي جبريل نوي سلامتي سلامتو دي وي قادي إلهي نوي أمانتي سمارتا انت كليا ما هي صعدالك جبريل فرين كلنا وحن بارسين هايو waxaad ugu bishaaraysaa khadiija guri jannada ku yaala oo luul ka dhisan isagoo dhan luul buu ka dhisan yaa luul kuwa Soomaalidan qaaliya ma isagoo dhan luul buu ka dhisan dabiicad calb guriga dhexdiisa hadana buuq male qaylo male stress male hadal ku dhiba male yaa daal male gurigaana ugu bishaaray jannaday ku leedahay ما يكون عاد بلي سويدية خديجة من ديك هذا دتك ديك كدوة مثل دتك عسكري كان نصب في عناية ويكرر في عناية مايا هل قضب واي واستقرب استاقي أي قرب استاقتي معي يا نبي يدعوه صلوات ربي والسلام عليه ساس ترى النبي صلى الله عليه وسلم صح ولا له مسهر ديبن لكن قربكي ugu horeeyay wuxuu ka helay dadkii ugu horeeyay rumeeyay buu qarab ka helay hayla iyaga waxay rumeysnaayeen dacwada soo gaadhay diinta soo gaadhay ay rumeeyeen mas'uuliyadeedii xilkeedu inuu iyaga ku dhacay mujarrad ay qaateen markay saa u qaateenba rumayntay rumeeyeen iyo inay taacaystaan waxa uu la socotay inay i'tiqaadiyeen diintan inay mas'uuliyad ka saaran tahay sidaasay marka xilka ku qaadeen waxa xigay oo nabiga sallallahu alayhi wasallam dadkii u horeeyay rumeeyay kamid ah isagana Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala an hadithka Bukhari Abu Bakr iyo Umar ba wax dhex mareen xogaa way isku yara dhaxeen waa la isiyara qoonsaday Abu Bakr ba wuxuu tagay gurigii waxaan u jeedaa Abu Bakr ba wuxuu tagay guriga Umar ويقول عمر ولالو وان كا قردرناي راليغا اهو عمر موسى و جوابين و كا غابسداي ارنت ابو بكر وا كا خماداي نبيغو يم صلى الله عليه وسلم رسولك الهيو اني عمر با واحد دحمرين يعفي بان كو يري و يغا ديداي نبي وحو صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك يا ابو بكر ابو بكر والله كو دمي داف الله كو دمي داف عمر الصعداي يمت عمر أرنتي وكحهم هذا ولالك أبو بكر وكويمت ويعفي كويري يا أرنتاسي موقف كاكو صح ما هين سوق أرضي النبي قويم صلى الله عليه وسلم مركو النبي أركي عمر وحكويري النبي صلى الله عليه وسلم عمرو وحكويري إن الله بعثني النبي قلت واحناق واحد هذا وحو عرضي عن عادي هين إلى أبو بكر أنتو جلبها كفر يستي ويده رسولك أنا كقردرنا رسولك إلهي وركز النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مركياني ديني مت وحاط هذين بوري بين بات شيكتي أبو بكر با أنتو استاجيري ورنتي حق إلهي بكيمد وأنا رنتي أنتي إنك لنا وحاجة لحدين بينالاته أنت موسى كدينيني وحقوق قرب استاجي نفتي سي حوريه سي وقوق قرب استاجي سيداس درادة صاحب كي يديني سامبر رسول الله وصاحب كي يديني صاحب كي يداي يا واي صاحبك يا أبو بكر واحد أو عمر صاحبك ما هم يا عمر نبي محمد صاحبك ما يا وصاحبك وانا اصحابتي النبي صلى الله عليه وسلم لكن صحبه الله مسنا صحبه النبي الله مسنين عمر يا ابو بكر markay noqoto مسنين soo saasma
ninkan laga hadlayaay waa ninkii nabiga godka la galay salawaatu rabbi wasalaamu calayh allahna qur-aanka kaga hadlay yidhi id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macanaa jidkii dheeraaya hijrada ninkii la soo maray waay nebi maxamed sal alay slam intuu noolaa safar iyo xadar toona kama maqnaanin intaa wuu la joogay ilaa uu nabiga godka kaga hubsado salawaatu rabbi wasalaamu calayh ninkii nooca ahaa marka war cumarow iidaa saaxiibkay waay saaxiibkay iidaaya muxuu ku mutay abubakar ma dadka kale uu ka nasab fiicnaa ma ka dhiig fiicnaa maya wax weeyaan wax qabadkii uu diintan u qabtay waay ilaa nebigu ka dardaarmay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi isagoo oo nool markuu nebigu xanuunsado booskiisii wuxuu gelin jiroo dadka tujin jiray abubakar xanuunka uu ku geeriyoon doono markuu hayana oo intuu 3 goor nabigu isku dayay inuu kaco hinqado si uu dadka salaada u tujiyo ayuu haddana noqday kici waay haddana waa hinqaday waa kici waay haddana waa hinqaday waa kici waay markaasuu nabigu sallallahu alayhi wasallam muru Abu Bakr falyusalli bin nas Abu Bakr amra dadka salaada ha geliye marka maxaa saal lagu siiyay waxa lagu siiyay Abu Bakr nabi maxamed buu garab istaagay salawaatu rabbi xoolihiisa naftiisa diintan uu garab istaagay Soomaaliyeed maalinku nabi maxamed rumeeyay inuu rasuul yahay maalinkaas wuxuu qaatay mas'uuliyadda nabigu wado salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ee diinta inuu qaybtiisa ku leeyahay oo mas'uul ka yahay mas'uuliyadiisa xilkiisa buu qaatay marka mas'uuliyadiisa haduu qaato ka soo baxayna ilaahay agtiisa maqaam sar uu ku yeeshay siddiq hadhihi al-umma waay qodobka saddexaad waxa waay siday saxaabadu diinta markay rumeeyaanba ay mas'uuliyadeeda tunka u saaran jireen midaal saddexaad baynu kaga baxaynaa waynu ku gabagabaynaa waa ninkii la dhihi jiray Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu Abu Abdurrahman la yiraahdaa ka warinay xadiis wuxuu leeyahay Uthman waa kii la dilay waxa lagu dilay magaalada Madiina niman kacdoon sameeyay oo khawaariji balaayo isku jirta ayaa waxay soo weerareen magaalada Madiina Uthman marka isaga khaliifkii muslimiinta oo xilka muslimiinta haya Uthman bay isku geedaameen xafiiskii ama meeshii dawladda uga talinayay bay isku geedaameen inay dilaan bay rabaan marka oo ka wada khalusaan Uthman xilka ka degmay dhaheen nabiguna sallallahu alayhi wasallam intuu san dhimanin Uthman wuxuu kala dardaarmay dad baa ku dhihi doona qamiiskaaga siib ee hasiibin buu nabigu ku sallallahu alayhi wasallam amar nabi buu haystaa inuu san ka tanaazulin xilkan oo qamiiskan uu san bixinin wuu diiday marka way isku hareereeyeen inay dilaan bay rabaan meel koru marka ka soo qooransado ka soo fiiriyay markaas wuxuu ku yiri anshudukumullah wala anshudu illa ashaba an-nabi sallallahu alayhi wasallam ilaahi baan idinku weydiinaya nimankiinan i hareereeyay doonay yani xumaanta rabow ilaahi baan idinku weydiin saxaabadii nabiga cid aan ahayna ilaahi wax ku weydiin maayo alastum ta'lamuna anna rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam qaal man hafara bi'ra ruma falahu aljanna warma ogsoontihin inuu nabi maxamed yiri ceelka ruuma la yiraahdo ninkii muslimiinta u qoda jannu leey oo fa hafartuha inaan qoday arinta marxaati ma ka tiino ma ogsoontiin soo qodoma alastum ta'lamuna ceelkaasi wuxuu ceel magaalada Madiina ku yaala oo magaaladu ka cabto oo nin yahuudi lahaan jiray muslimiintii baa u baahday markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam wal ceelka yaa soo iibiya oo muslimiinta u gada oo janno yeesha booskaasi yaa iska leh Uthman baa marka lacagtii bixiyay ana gadi rasuulka Ilaahay Uthman baa gaday ceelkii muslimiintu ku soo wareejiyay warmidda marxaati ma ka tiin buu haaway dheh mid labaad baan ilaahay idinku weydiinay ma ogtihiin inuu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam man jahaza jaysh al-usrati falahu al-janna ciidanka leeyada ciidankii usrada ciidankii Tabuk ku duulay suuratu tawba ka sheekaysay munaafiqiintu fadeexoobeen khatartu ka dhacday xilli adag baxay ciidan fara badan ahaa masaafadu fogeyd ciidan sahlan ma ahayn suuratu tawba hadda aragteen ciidamadan ay waxan ay ka waramayso ciidankaas asal u ahaa
waqtigu baxay duruuftu ku baxay xilli adag sahay gaadiid war ciidanka ayaa kharashkiisa bixiyo janno yeesha ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam madiina iyo tabuk waxay isu jiraan 700 kilomitir waa 700 kilomitir oo xilli kulayla ah ayaa la doonayaa in lug lagu jiiro duulaan iyo qaswa wax salanba war ciidanka ayaa kharashkiisa bixiyo janno yeesha rag isku mid ma jaanis kan rag baa ka faa'iideystay qaarna iyagoo arkayay dhaaftaan sooma ma ogtihiin buu nabigu markaas sida markuu yiri fajahastum ciidanka inaan anigu qaban qaabiyoon kharashkiisii bixiyay war arinta markaati ma iiga tihiin haawayde markaati baanu idin kana yaanu kaagana way u qireen Soomaaliyeed maqsuudku muxuu yahay marka meeshii diintu ay dhaqaale u baahatay raggeedii baa buuxiyay meeshay u baahatay hoggaan iyo geesinimana raggeedii baa buuxiyay Khalid iyo Abu Ubayda iyo Amr ibn Aas iyo raggeedii baa buuxiyay meeshay u baahatay cilmi iyo faafintiisa iyo juhdi iyo dacwada iyo wacyigelin markay u baahdeen raggeedii baa faafiyay Abu Hurayra iyo rag hormuudka ka aha iyo Abdullah ibn Umar iyo Abdullah ibn Abbas rag baa hawshaana ka hawlgalay Soomaaliyeed nabiga iyo ilaalintiisa markay noqoto war ramzigi ummadda ilaalintiisa markay noqotona rag baa labada dhinac kaga jiro ilaalinay Soomaaliyeed sidaas daraadeed majaal kasta oo diintu ay u baahatay rag baa u taagna laana kulligood waxay fahansan rag kaliya ma dumar inta ay ummaddu marayso Saciidii ugu horeysay hawsha qabatay Khadiija ma ahayn soo hadda ka soo sheekeynaa dumar bay ahayd muwaaqifta ugu adag ee ummaddu ay marayso dumarku safka hore kaga jireen dagaalkii Uhud ee Madiina ka dhacay ee lagu hoobtay ee 70 kin ee khiyaaru saxaaba lagu dilay dumarku dagaalka qayb bay ka ahaayeen rag dhaawaca sahayda orod Soomaaliyeed sidaas daraadeed ummad ayadoo dhan wada duuban bay ahayd madaxdeeda dawladeeda ganacsatadeeda ka dhaqaalaha haysta ka xoogga haya geesigeeda rag iyo dumarba loo heelayahay bay loona heegana loogu jiro ilaahay diintiisa sidii kor loogu qaadi lahaa markay sidaas sameeyeen ayaa iyagana ilaahay u hiiliyay caalamkaad aragteen ayagoo tiro yar ah oo dhaqaale haysanin oo gaadiid badan lahayn ayay caalamkaad aragtay intay u babax dhigeen bay dhanka kale uga baxeen markaasay diintii ilaahay mashriq iyo maghrib gaarsiiyeen muddo kooban oo qiyaasi ah oo taariikhda marka la fiiriyo caalamka aan sooba marinba muddo aad u kooban bay adduunka dhankaana uga baxeen mashriq iyo maghrib uga baxeen sababtu maxay ahayd sababtu waxay ahayd ilaahay bay run u sheegeen runna kula dhaqmeen diintii bay garab istaageen iyagana ilaahay baa garab istaagay Soomaaliyeed su'aashu waxay tahay marka halka waxa inooga soo baxday su'aashii jawaabteedii diintan yaa mas'uul ka ah yaa saxil ka saaran yahay jawaabteedii ma hal mismeel warma hal mismeenahay yaa xil ka saaran inagoo idil dadkeenan adi meel kale ku riix meel kale u riix adiga laftaada yaa adiga Khadiija ah iyo adiga Maryam ah iyo adiga Faaduma ah iyo adiga Abdi ah iyo adiga Maxamed ah iyo adiga Ahmed iyo adiga Faarax idinka idin saaran tahay Soomaaliyeed meel kale halaadan adiga meel kale ha fiirin macnuhu inuu sidaa yahayna quraanka kariimka dhageysta Allah tabaaraka wa taala wuxuu aayad hadda leeyahay tujinayay yaa ayyuhalladina aamanu kunu ansar Allah war mu'miniintiyo waxaad noqotaan kuwa Ilaahay diintiisa u hiiliya yaa mu'miniintiyo Ilaahay ma dhihin culimadiyay lama dhihin madaxdiyay lama dhihin dumarkiyo lama dhihin raggiyo lama dhihin tujaartiyay lama dhihin maxaa la yiri yaa ayyuhalladina aamanu kuwa iimaanka lahow yaa kuwa iimaanka lahow kunu ansar Allah Ilaahay diintiisa kuwa u hiiliya noqda halka maxaa ka soo baxay madaxweynaha mu'minka xilka diintu ma saaran yahay taajirka mu'minka xilka diintu ma saaran yahay
odayga mu'minka iyo suldaanka mu'minka xilka diintu masaareen haweenayda mu'minada xilka diintu masaareen ya maxaa marka la isugu riixriixo la isugu tuurtuuri yaa ayyuhalladheena aamanuu mu'miniino kunu ansaar allah ayadda kale rabbi wuxuu tabaaraka wa ta'ala yaa ayyuhalladheena aamanuu in tansurullaha yansurkum war mu'miniintiyow haddaad ilaahay u hiilisaan wuu idin hiilin mu'miniintiyow xilkan idinkaas kale ayad kale waa ka rabbi dhahaya tabaaraka wa ta'ala wal mu'minuuna wal mu'minaatu ba'dhum awliyaa'u ba'd mu'miniinta rag iyo dumarka ayaga isjecelo walaala ah maxay sameeyaan ya'muruna bil ma'ruf khayr kayfa fiyaan diinta faafiyaan wayanhawna 'anil munkari wixii diintu diidayna way reebaan diintay u shaqeeyaan yeeyihiin rag iyo dumar sidaas daraadeed mujarrad aad mu'min tahay waa inaad garawsato diintan in xilka saaran yahay sidaasayna ahaayeen dadkii hore fahamkoodu saxsanaa intaan fahamku khaldamin waxaan kaga baxayaa u fiirsada ninkan xadiidka Baraa ibn Aazib Bukhari baa soo sareeyay qeyrkii nin baa nabiga u yimi sallallahu alayhi wasallam ata an-nabiy rajulun muqanna'un bil hadid nin baa nabiga u yimi sallallahu alayhi wasallam ninkaasi dirayskiisii buu qabaa waa gaashaaman yahay oo dirayskii dagaalku qabaa ya nabiga u yimi sallallahu alayhi wasallam dagaal baa socdo markaa ninku waa gaal ninku markaa nabiga u imaanay waa gaal laakiin markuu soo socdaba nabigu inuu dagaal ku jiro waa ogsoonaayo dirayskii dagaalka iyo hubkiisii oo dhameystiran buu soo labistay soo dagaal u diyaarsan buu nabigu u yimi sallallahu alayhi wasallam markaas wuxuu yiri yaa rasuulallah أسلم أم أقاتل رسولك إلهي ميان إسلاما مسوان دقالما كان هرمريا كل هدان إسلام الدقال والله مهراني والدين تنين عن نفط إذا السينة يوابا كو قصبنا هاي ما إسلام لماذا هرمريا مش الدقال كان هريك قال عندنا إسلامين با وفي رصدا وأجي هاي مركو صا إسلام هيبا inay diintani leedahay xoolihiisa iyo naftiisa iyo wuxuu haystaba inuu diinta galiyo loo baahan yahay saas daraadeed wuxuu rasuulka ilaahay oo islaamnimadan hormariya isa dagaalkan hore ka gala nabi wuxuu ku sallallahu alayhi wasallam aslim thumma qatil marka hore islaam kadibna dagaalka gal uu islaamay dagaalkii socday buu galay isagii baa lagu dilay markaas nabi wuxuu sallallahu alayhi wasallam amila qalilan wa ujira kathiran إن يربو عمل سميني وقتي كوبان بشقيسني أجر وين إلهي واسيب وفي رصد أجر وين ننكاسي أساقو قال يوحو سو فهمي دين تن وقال يمركو قلبا إن مسؤولية ديدو سارنتهاي والله قربو إن مسؤولية ديدو تونكا سارتو حيل كيدا قاتو نفتي ساسيو حوليه ساسيو وعجعلي هايسيو سومارتان ساسا يهيد مرك ما أنت لكن sidaas si ka gadisan baa taalo oo fiirsada ra'sul haramka madaxa u koreeya muslimiinta matala soo madaxda ma soo dawladaha markaad fiiriso jadwalkooda ajandayaashooda ay wadanka ku maamulaan diintu halkii xagee kaga jirtaa ya waxay ku leeyihiin sheekh waxaan u sameeynay wasaarad la yiraahdo wasaaradda awqaaftii arrimaha diinta haye de wasaaraddaas ka shaqeysa wasaaraddu waa wasaaradda ugu miskiinsan wasaaradaha waa wasaaradda ugu dhaqaale waa wasaaradda ugu shaqaale yar wasaaradaha siyaadiga la yiraahdo wasaaradaha way kala muhiimsan yihiin Soomaa wasaaradaha siyaadiga la yiraahdo ee ugu muhiimsan wasaaradaha kuma jirto sidaas daraadeed ninka loo dhiibay huwa saluugiba Soomaa huwa saluugiba wuxuu ku leeyahay war meeshan inta la geenahay ama wasaaradda dhaqaalaha ama wasaaradda ciidanka militariga ama wasaaradda arrimaha dibadda ama midda gudaha أميد immigration كما ليجي ماشان قلنا المحل يقلا دون
madaxdeennii wataa marka ajada diineed ummadday hadda matalayaan ogo waa ummad muslima dalku waa dal muslima waxana meesha ku hayaan oo dhan diinta ka muhiimsan soo sharaxna soo diintu kama muhiimsan diinta ka muhiimsan adar wuxuu ka hadlayaa jid baan dhisaya wuxuu ka hadlayaa beeraan beeraya wuxuu ka hadlayaa iskuulaan dhisaya wuxuu leeyahay isbitaalaan idin dhisaya طيب diintii aawe uguma jirto حتى ololaha doorashada markuu galayo uguma jirto wax diin leeyahay laana muxuu ogsoon yahay shacabkanu ka og yahay inaysan aad u sii danaynaynin hawlahan hadduu ogsoon yahay in diinta uu ku helayo kursi ku helayo wuxuu qabadkeeda wuxuu ka bilaabi lahaa ajandahayda koobaad inaan diinta wax ka qabto waa markuu cod idin ka rabo sooma laakiin idinka la idin ogaaday inaydan arinta cod ku bixinin ma fahanteen sidaas daraadeed dawladeeni waka kii dhaqaalaha haystay ee la rabay inuu diinta dhaqaalaha ku bixiyo diintii oo baahan masaajidii oo baahan dugsiyadii oo saa u yaala ducaadii oo sidana dadkii oo sidana oo hadana akownada lacag uga buuxdo milyaneer uu yahay ajendihiisa qorshihiisa kuma jirto inuu diinta wax badan ku bixiyo ajiib aruurtiisa iyo reerihiisa inay nolol badakha ku noolaadaan wuu rabaa laakiin meel haday kaga jirto xataa meel hoose bay diintu kaga taala ajendayaashiisa sidaas daraadeed markii loo tago la yiraahdo war diintii baa tana war masaajidii baa gogol la'aana war mid dad baa masjid la'aan geed hoosti ku tukanaya war dugsiyadii quraanka ilaa hadalkiisa lagu baranayay baa jidadka iyo banaanka daadsan war ducaadii diinta waday baa waxay ku wadala warniyo xoolahan diinta wax ka sii marka lagu yiraahdo wadaadkii u yimid buu maagiba wuxuu ku leeyahay wariyaa wadaad adeer waayaan dawrsi baa idin ka soo haray billahi alaykum meelaan idin ka marnaa laana meelaan idin ka marnaa laana masaajidii baa idin ka tukan laana 24 saac xun baa dadka weydiinaysan war maxaan ku weydiinaynaa adama shaqada yaa iskale war shaqadan ma wadaadkan miskiinka baa la miskiin kana leh yaa la shaqada wadaadkan miskiinka ilmihiisiiba wax biil aan uga imaanin diinta u warwareegahay tujaarta u barbar yahay ma wadaadkana mas'uuliyadu saaran tahay mise taajirkana iskale mas'uuliyada yaa la mas'uuliyadiisii waa xilkiisii baa loola yimid oo war xilkaaga qabso markaasuu kii xusuusiyay maagaya marka dambe waxa weeye dariiqa lagaga carari nin kamida maalin idii sheekeen wuxuu yiri nin ganacsatada kamid ah wacay buu malaa dhowr goor buu qoliyo wadaado dugsi iyo wax u socsocda iyo u geegeeyay wax uga qaad waa wacay warwarano ma fiicanto waa fiicna war xageed joogtaa u kaadi ma wadaadaad wadaa buu ku yiri ma wadaadaad wadaa war wadaada ma wada ana danka leh xagaan ka ahla heerkaasay gaadhay xoolaha noocaas ninka haystay ee hadana fahamkiisu sida yahay shaki waxayna ku jirin inuu yahay adoon la imtixaanay culays badan iyo hawl culusna u taalo taajirkii ka way aqoonyahankii kan way aqoonyahankii ama adduun bartay ama diin bartay inuu u tadxiyo oo diinta barideedii wuxuu qabashadeedii waqti ku bixiyo ajendihiisa in badan kuma jirto jadwalka kuma jirto in badan kii wax qorayay haasawu qori sheeka jacayl buu qori sheeka wadaniyu maanta nan qori maaweelu qori maanta dhow wuxuu ku mashquulsan yahay qoraya qalinkiisu ku mashquulsan yahay wax la yiraahdo suugaan buu qoraya suugaan hal mar qalinkiisu ku leexan mahayo war ummadan diinteeda bal wax yar ka qor kii suxufiga aha ee wariyaha aha ee television ka shaqeynay idaacada ka shaqeynahay maanta na warbu daldali warka uu daldalahayo hal ajando diina kuma jiro warso muslima ya ayuha alladina aamanu awe hadhowna waa iimaanaya waa tukanaya madaxweynihii waa tukanaya wariyihii waa tukanaya wadaadkii waa tukanaya
dumarkii waa tukanaya taajirkii waa tukanaya yaa ayuha aladiina aamanuu war mu'miniin baad tihiin haddaad mu'miniintiinna xilkiinna waxaa ka mid ahee kunuu ansaar allahi aawe sidaas daraaddeed walaalayaal mafaahiim in la saxa u baahan waayo diinteenna iyo adduunyadeenna in la kala saaro oo diintana la yidhaahdo dad khaasaa iskale wadaad baa iskale nolosha inteeda kalena diin shaqo kuma laha fikirkaasi waa fikir gaalo ka soo jeeda waa fikir calmaani ah oo ku salaysan diinta iyo dowladda hala kala saaro diinta iyo adduunyada kala saara adduunyada iyo dowladdu dadkay ka dhaxaysaa diintuna waxa weeyaan waa wax shakhsiya adeer masaajidka la-aad fikirkaas waa qaswi waa dulaan miskaxeed waa fikir ka soo jeeda reer galbeedka waa hore iyagu diintooda ka tageen diintay ka tageenna wax macno laba ma ahayn meesha innaga doonayaan diinteenna tuura ayna leeyihiin waxay ka tageen diin ma ahayne caqiido saxsanna ma ahayn camalna ma ahayn caqiidaday hayaan maxay tahay muxuu ahay kirishtanku ay hayaan war reer galbeed caqiidaday ka tageenee kirishtanku maxay tahay ya waa 3 ilaah haddana hal ilaah ma garat xataa xisaab ahaan ma asixi karto ya 1 equal 3 ma sixi karta hal oo haddana la mida 3 ilaah waa hal haddana waa 3 waradeero nafahansiya midho barda duduub baa lagu liqaayo sheekhow liq su-aasha badanna jooji war adduunkii liq la dhihi jiray horay u socon lama joogee ee la gaardin jiray lama joogee qul haatu burhaanakum weeye kiristanow naga dhaadhiciya ilaah waa hal waana 3 lagu wareer dadkii markay wax barteen kaniisadda warkeedii waa la liqi waayey waa laga cararay xaggii marka la yidhahdo hal la cibaadaystana kaniisaddii marka la soo galay durbaan baaba la garaacaya hees iyo durbaan baa dhacaysa war hees iyo durbaan laguma cibaadaystee nimayo waxaan kaata wax ku bedela laga tag nimanka la reer galbeed inay ka tagaan diinta kirishtanka sax bay ahayd laakiin ha ka tagaane ka daro dibi dhal weeyo kud ka guuro qanjo u guur weeyo miday u guureen baa ka dartay maxay u guureen waxay u guureen ilhaad iyo inay ilaahay aakhiraba inkiraan saas daradeed aqlabiyada reer galbeedku say u badan yihiin hadda wax ilaahay aakhiriya diin ma rumaysan waa mulxidiin ya halkaasay mareen diintay ka tageen taasay laakiin inagu diinteennu masaasa waa diin caqiidadeedu fidrada la socoto daliil iyo burhaan saaran yahay cibaadadeedu caddahay mucaamalaadkeedu caddahay shuruucdeedu iyo garsoorkeedu adduunku weligii uusan gaari karaynin waa diin dhinac walba ka dhamaysan oo xagga ilaahay ka soo degtay saas daraaddeed waxaan leenahay madaxweynaha muslimiinta madaxweynaha u ah ee iska dhigaya sida madaxweynaha reer galbeedka iyo gaaladoo kale u dhaqmaya diinta ula dhaqmayo war ogow ma tihid gaal ma tihid reer galbeed qaarkood ha u dhaqin kuwaasi waa gaal waa mulxidiin adigu muslim baa tahay diintaada iyo shacabku wuxuu rumaysan yahay iyo caqiidadan saxda ah qodobka ugu muhiimsan inaad wax ka qabato waa isbitaalka ka muhiimsan iskuulka ka muhiimsan caafimaadka ka muhiimsan nolosha ka muhiimsan cuntada ka muhiimsan sheekh imaam axmed uu leeyahay bini aadamku cuntada siduu uga baahan yahay si ka daran buu uga baahan iimaanka iyo diinta ugu baahan yahay saas daradeed maqsuudku waxa way walaalayaal fahamkan hadda jira aan bedelo wartaa jirow kaalintaada qaado diintu waxay dhaqaalo u baahan tahay la diyaar garow warkii dhalinyaro ahow u diyaar garow diintan xooggaagii inaad wax ugu qabato warkii mutacallim ahow diintan inaad aqoontaada wax ugu qabato u diyaar garow warkii sheekhow diinta yaqaano diinta inaad faafiso u diyaar garow hooyadii iyo dumarkii u diyaar garooba diinta inaad qaybtiina ka qaataan sad horeba uga qaadan jirteen ruux walba kaalintiisa buuxiyo saama isku ogna warka ma isla qaadanaa ha isla qaadan waxa yuusan ka soo noqonin ya warka insha Allah waan gudoonsanay biidin ilaahi tabaaraka wa taala ilaahi baan wax kaga rabnaa sidaasaan u qaadanaynaa ruux walba inuu kaalintiisa ka qaato diinta ilaahina garab istaago jazakumullahu khairan wa baraka fiikum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، الله سبحانه وتعالى ميزان كان حسنا كاكوكبو كلمة داسات وقيمة بدن النوجيسي أنك الله سبحانه وتعالى أنك دعاء الله سبحانه وتعالى وديت إلهي حيك كسر وتوه وكرتو إلهي نجدو أنت كذب شيخنا إلهي سدح سؤالات بين السوي ديي موضوع أنكسب سنين ما دام عاو الشيخ إلى أركي qof walba wixii uu maaragtay niyada ku hayay ayuu soo qortay. gabadhan waxay weydiinaysaa sheekhow, dahab ayaan qof ka gatay, intii aanan lacagta bixinin ama aanan dhammaystirin, hadduu qofkii idhaho waan kuu haynayaa dahabka intaad ka soo dhammaynayso lacagta, ma riba ayay igu tahay? بسم الله الرحمن الرحيم. جوابته واها ذهبك لك لقدنا ganacsiga كاش بالو kala gataa هو isii waay لأن الذهب كل lacag oo kala waay bal lacagii asalka ah waay xugum lacageed maadaama uu leeyahay laba lacagood oo la isku bedelayo kale ka dhigan yihiin haan way oo isii haddii midkood uu dayn noqdo ama lacagtii dahabka aad ku gadanaysay baa wax dhiman yihiin oo wali aadan bixinin, ama dahabka aad gadanaysay baa wax ka dhiman yihiin oo saasaad ku kala tagteen, ribo way markaas. waxaa soo hadhay ii dhig lacagta intaan soo dhammaystirayo, ayaduna waa xeeladaysi. sababtu wax weeyaan ii dhig bimaanaa caqdigii waa dhammaaday, waa la heshiiyey, waa la kala gatay, lacagtii qaar baa la bixiyey, qaar baa dhiman. ii dhig intaan soo dhammaystirayo bimacnaa wax weeye mushkiladii ahayd shuruudii ribada ay kaga badbaadi lahayd ma buuxinin, khalad baa wali ku jira. saas daraaddeed ruuxan dahabka aad ka gadanaysa dahabkiisuu leeyahay, adiguna lacagtaadii baad leedahay, ilaa aad kaash markaa aad wada taagantiin aad la kala wareegaysaan dahabkiiyo lacagta ilaa aad gaadhaan. inta ka horraysa isaguna dahabkiisuu leeyahay, adiguna lacagtaadaad leedahay. waxna laguma kala gadan karayo, dahabka dayna laguma kala iibsado, lacag dhimanna laguma kala iibsado. ihay waan soo dhammaystirina iyaduna ma aqbalayso. wallahu aclam. جزاك الله خير الجزاء. شيخنا سؤاشنا قبل كلا يا سو قرتي وحي لها السلام عليكم شيخنا. ninkayga ayaa wuxuu jecel yahay aabihiis inaan cilaan u mariyo garka iyo madaxa, lugahana u riixo, anigana waan ka xishoonayaa sodogay. marka ilaa xad intee la eg ayay diinta ii ogoshahay inaan sodogay u dhawaado? baaraka allahu fiik. haweenayda sodogeedu wuxuu u yahay maxram buu yahay, waliba waa maxram abadi ah, oo hadday xataa ninka kala tagaan sodogeedu weligii maxram buu usii ahaanaya. maxramnimadana waxaa laga wadaa bimacnaa waxa weeye inta badan ruuxu markuu joogo jirkiisa inaha ka muuqdaay wayna fiirin kartaa, wayna arki kartaa, wayna taaban kartaa. saas daraaddeed inay u cilaanto oo ay madaxa iyo garhka iyo cilaan u marmariso oo jirkiisa qaybaha ka mid a ay taabato mushkilo ma leh, inay lugaha u tuutuujiso mushkilo ma leh. keliyata inta cawrada ah oo ragga cawradoodu waa xudunta ilaa lawyaha, soo ma xudunta ilaa lawyaha oo cawrada ragga ah wixii ka soo hadhay ninkaas sodogeeda ah mushkilo ma leh. hadday u saliidaysa iyo hadday kareem u marisay iyo hadday u tuutuujisay iyo hadday cilaan u marisay iyo waxaan cawrada ka ahayn waa u bannaanta. waxaan cawrada ka ahayn waa u bannaanta. xishoodku meeshiisa waaye oo xididku waa kala xishooda, xishoodku meeshiisa waaye. laakiin maxaa u bannaan haddii la yidhaahdo mushkilo male, cilaanna way marin kartaa, wayna u tuutuujin kartaa. cawradaasi wixii aan ka ahayn. wallahu aclam. جزاك الله خير الجزاء. شيخنا سائل كان وحول لي هاي قبل هدي اتراهضو مهر كيغوا إن الحج إجيسو مسحبا مساء. وهو صح وصح يا لأن مهركو حولنا والنقطة
manfacana waa noqdaa wax nafci ana waa noqdaa xoolana waa noqdaa in xajka gabadha la geeyo waa manfaco cibaada waay kharashna waa ku baxaya marka xajka inaad geyso way ka dhigantaa meher way ka dhigan kartaa umre igee bay ka dhigan kartaa meher waxay meher ka dhigan kartaa quraanka ibar Soomaaliga haddii hadhow uu xajkii geyn waayo oy kala tagaan xajka wixii lagu tagayay baa la qiimeynaya kaasa marka lacag ahaan loo siinaya laakiin iskaalka jira wuxuu yahay iskaalka meesha ka soo baxa wuxuu yahay xajka tagitaankiisu uu kala kharash badan yahay xajkee way midka gabadha rabto marka ma VIP ba xajka waxa ka jira VIP waxa la yiraahdo meelaha dadku ay degaan ba waxay kala tahay level 1 A B C bay u kala qaybsanaa marka kharashka lagu xajinaya ba kala badan meesha marka iskaal ba ka soo bixi karo bari waxa laga yaabaa in iyaduna tiraahdo VIP baan ku shiinay igu xajisi midna isaguna inuu yiraahdo ma C baan ku heshiinay soo agaran waxyaalaha noocaas oo kala marka waxay ku fiican tahay in aan meherka laga dhigin meherka wax cad baa la rabaa bari muran ka iimaanay Soomaa wax ihtimaali kara sidana ay suroobi kara sidana ay suroobi hadii laga dhigayo waa in wax la cadeeyo مثلا gabadha dahab lagu meherinayaa marka way dhacdaa waxa lagu meheriyay مثلا 30 gram oo dahab 30 gram dahabka noocee waa dahabka soo noocee ma la ya dahabka noocee leeyahay hadaan la qeexin nooca dahabka gabadha lagu meheriyay bari waxa imaan doonto inay iyaduna tiraahdo midkii qaaliga ahaa qabsato isaguna midka ugu hooseeya qabsato see lagu kala saaraa marka waa la yiraahdo marka meherkii oo dhamaba jiree meherul mithla loo noqdo iskaal kala iimaanay saas daraadeed waxa la rabaa meherku inuu noqdo wax cad oo bari muran ka iimaanaynin lacag hadii lagu meherinayo kale midna waxa la yiri waxa lagu meheriyay $1 dollarkee waa ya وين $1 مريكان صوت maxay tahay dollarka ma mareykan kaliya isticmaal inkastoo sida u badan dollar hadii la idlaaqo oo ka mareykanka yahay hadana dawladda kale oo dollar isticmaal jira Canada lacagteeda iyadana dollar baa la Soomaa dawladda baa dollar isticmaal marka meelaha iskaalku gali karo dhan waa in iskaalka laga saaro oo la qeexo waxa uu yahay waxani wallahu a'lam جزاك الله خير الجزاء شيخنا سؤال شفرات عبد الرشيد يا أفكيس كويتين إن شاء الله تعالى شيخنا سعيد بقولي بس كده فناينا هدي صلاة الشروط ده كميتها إن عورض الأسطر نين دلنا يرى يجوهر تكن هي يوحو قبي بقولي هي فنانات قاون مركو ركوعها من سجودها هي وحكى لبحها سروالك iyo funaanadi marka ninka oo kale markaan salaada dhameysano ma dhihi karaa salaada soo celi maadaama salaada ay kamid ahayd shuruudeeda in awrada la asturo awradiisana aysan asturnayn awrada in la asturo salaada marka la tukanayo waa sharti kamida shuruudeeda sharti shuruuda kamida weeye awrada in la asturo awradana waa tii hadan tilmaameynay ragga awradoodu waa inta u dhaxaysa xudunta ilaa lawiyaha inta u dhaxaysa awradii ragga salaada markuu tukanayana xadiis kala tilmaamaysa inuu garbihiisa wax saaro intii awrada ahayd hadii salaada dhexdeeda uu qarin waayo culimada jumhuurtoodu waxay qabaan salaadaasi ma jirto sidaas daraadeed dhalinyaro fara badan oo sarwaaladan dabada ka sii dhacaya qaba wuxuu xidhay anigu ma aqaanee waxa ilaahay intuu dharbadiyay adduunku maanta ugu dharbadan yahay waligi intuu soo maray hadana dhalinyaradaasi waa aradan baladu si wax awradiiba aan qarin inuu dabada ka sii dhac war maxaa idin xidhay wax la yaab la waa sarwaalka dabada ka sii dhacaya iyo funaanada ama shaatiga sarwaalka kala baxaya ee ruuxa bariyihiisu ay muuqanayaan ruuxaasi salaadu tukaday wax jira ma aha hadaalina arbaadina
يا رفادنا أنت بلاي يجين يقارح من كودا يريسان صلاة هيسك خربنا إلهي أمر كيبلو فيرس قال هذا يبقى إسلامته بعد الشر أهون من بعضنا قال هذا الدوادة قاويستك ويا واحد قال هذا السروال كالدوادة كاسي دعية حدا واكوية واتشكره هذا واحد كود السيلي توا قشنك بل هذا قالوا كودا ينس يا قال هذا حتى ويس طاباري كان شكره الدربي كشيفه سروال كالدوادة كاسي دعيش maxaad ugu qaadatay inay ilbaxnimo tahay warso wax la yaab lama bini aadankan markuu shaydaan adeegsanayo wax sahlan ma meeladan isdhiiba war maxaa geliyay laakiin nabi maxamed baa ka sii warramay sallallahu alayhi wasallam soo rasuulkeenu ma dhin sallallahu alayhi wasallam hatta haday dabba godkeeda galaan waad ka daba galeysaan yahuudiya nasaara miyaa nabi rasuulka haa yaa kale rasuulka sallallahu alayhi wasallam dabbadu maxay tahay yaa حيوان يرو غرغورتو محمار توان او ملح قل كلك هوغير او قد عريريا او مدو او اورهيا غلوا ورميل اوريس ودنا موغديا ودنا عريريا ما حد ugu xilata maxaad uga daba gash shaydaan baa wato kalama sidaas daraadee salaadiina ugu ciyaarina haddaad aragto ruux noocaas oo sarwaalku iyo shaatiga kala baxeen oo dabadu qaawanto tukanaya وشيك واحد كنت هذا أدر صلاة سعلي صلاة سيدنا صلاة ما هي صلاة دي بتوكو الدين النصيحة سوني بمريه الدين النصيحة نينجا والروح مسلمة بل يروها ومؤمن إمام بسوق لي مساجد صوص با إمام بمساجد سوق لي هدوسن روح مسلم وإيمان لأهين مساجد نمسوق لين صلاة نمتو كذين بل يرى الدور كيا عايز كودر ماذا صوص ما maxaa soo galiyo masaajidka marka masaajidka waxa soo galiyo iimaan baa soo galiyo sooma waxba ka khaldan marka waxa ka khaldan marka loo saxo u baahay marka loo naseexeeyo u naseexo tirada warniyo awradaada ya muuqatee annagiina waaba nafidnaysay ya annagi kugu daba tukanina xataa nafidnaysay bal salaada soo xiri ku dhig wallahu a'lam